haddii uu xanuunku haleelo iska samir. Ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu rabaa fi ixdaa asbaabi thalaatha, 3 sababood ayuu rabaa. Matala nabiga calayhi salaatu wasalaam nin caraabiyu soo booqda. ninkii caraabigaa soo booqday nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsanayay ninkaasu wuxuu ku yidhi laa ba'sa dahuur insha allah. ninkii caraabigaa baa yaabay wuu jawaabay wuxuu yidhi kalla hayhaati kata bal hiya xummaa waa xumad buu yidhi dhafoorka jabinaysa xaggay dahuur ka tahay. ilaahay subxaanahu watacaala markaad xanuunsan 3 sababood ayuu kaa rabaa mid inaad noqotid. wuxuu rabaa ilaahay subxaanahu watacaala dembiya yararo aad gashay in uu xanuunkaas kaaga dhaafo oo aad aakhiro la kulantay ilaahay subxaanahu watacaala adigoo nadiifa. sababta labaad waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala rabo inaad isaga usoo noqotid oo usoo laabatid. yaanad arag ninka adhi jirka ahi markay adhigiisa mid ka mid ah ay ka baxsato xerada in uu dhagaxaan iyo ul ku soo celiyo. haddii uu ushaa iyo dhagaxaantaas neefkii uu kusoo noqdo xerada uu ka joojinaya. ilaahayna subxaanahu watacaala walilaahi almathalu alaclaa wuxuu rabaa in aad usoo noqotid. sababta saddexaad waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala rabo oo kuu qoray darajo aad iyo aad u sarreysa jannada. darajadaana aanad ku gaadhayn ilaa iyo in lagu shiilo oo lagu dhalaaliyo oo lagu miiro. deetana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kugu imtixaamaya xanuunkaasaad ku sabraysaa. saa ilaahay subxaanahu watacaala darajadii uu ilaahay kuu qoray ayaa aad gaadhaysaa.